qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye ayaa xalay doonay haybado Ismaaciil Cumar Geelle oo ah gabadh uu dhalay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. munaasabadaasina waxa ay ka dhacday Haramuus. munaasabadaasi ayaa iyadu ahayd mid kulmisay habka dhaqanka iyo casriga waxayna ka qabsoontay Haramuus waxaana u joogay odayo dhaqameedka mandiqada oo ka mid yahay ogaaska Ciisaha ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim oo isagu ku jooga dalka martiqaad oo u fidiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle. waxa kale oo kamid ah dadkii iyagu ka soo qayb qaatay munaasabaadkii ama odaya dhaqameedkaasi suldaanka Tajoora Cabdulqaadir Xumed iyo suldaanka Goobacad suldaan Xabiib Boko iyo sidoo kale suldaanka Somaliland iyo shakhsiyaad kale. ogaaskii beesha Ciisaha ogaas Mustafa Maxamed Ibrahim ayaa isaguna ka soo qayb qaatay munaasabadaasi ballaaran. sidoo kale suldaanka Tajoora Cabdulqaadir Xumed iyo suldaanka Goobacad suldaan Xabiib Boko iyo suldaanka Somaliland ayaa iyaguna u joogay munaasabadaasi. waxaa u joogay oo kale mas'uuliyiinta dalka ugu horeeyo madaxweynaha Jamhuuriyadda Djibouti mudane Ismaaciil Cumar Geelle sidoo kale culamaa u diin. munaasabadaasi doonista ayay ahayd iyadu mid ku salaysan dhaqanka iyo diinta. يا النبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. munaasabadaasi ayaa iyadu bilaabmatay kadib markuu soo gaaray goobtaasi caroosku wasiirka waxbarashada qaranka iyo tababarka xirfadaha Dr. Jaamac Cilmi Cukiye. meherka haddaba doonistani la isweydaarsaday ayaa ahayd mid dhaqanka ah oo ka koobnayd 26 halaad awr faras iyo qori waxaana lagu soo galbiyay sidii aad arkayseen ba carooska qasaa'idka diiniga ah.